halkani waa dunida media daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan dunida media. haddii ay tahay marka kugu horeysa janalka waxaan kaa codsanayaa in janalka subscribe saarto gambaleelka aad furto si uu kuusoo gaaro muuqaal walba oona halkan kusoo gudbino una sii sheergaray saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka. waxaan barnaamijkeena maanta kaga hadli doonaa ama aan ku falanqeyn doonaa dowladda Sacuudiga oo malaayiin lacag ah ugu deeqday dowladda Soomaaliya si loogu xaliyo arrimaha awaaraha ka jira dalka Soomaaliya. sidoo kale weeraro markaasi u dhaxeeyay ciidamada booliska dalka Masar iyo shacab markaasi banaanbax sameynayay oo ay ku dhinteen 11 qofood. waxaan kaloo maanta barnaamijkeena kaga hadli doonaa ama aan ku falanqeyn doonaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta markaasi degmada Yaaqshiid oo lagu dilay qarax. xarunta gargaarka bini'aadanimada ee Boqor Salmaan ee dalka Sacuudiga ayaa daahfurtay wejigii labaad ee gurmadka degdega oo loo fidinayo Soomaaliya si loo yareeyo saameynta abaarta. dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in lacag ku dhow 13 milyan oo dollar ku garab istaagayso dadka dhibaataysan iyo kuwa u baahan bini'aadanimada iyo sidii wadida dhowr ay ku leedahay ka hortaga macluumaadka Soomaaliya. anagoo ka duulayna awaamiirta boqortooyada Sacuudi Carabiya ee ah in la garab istaago dadka tabaalaysan ee dalalka walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada ah, waxaan daahfurnay wejigii labaad ee gargaarka degdega si ay uga qayb qaataan daboolidda baahiyaha bini'aadanimada ee dadka ay saameeyeen abaaraha Soomaaliya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Boqor Salmaan. lacag dhan 47.214 milyan oo lacagta riyaalka una dhiganta 12.9 milyan oo dollar ayuu Sacuudiga ku taageerayaa barnaamijyada cuntada iyo nafaqeynta caruurta iyo in biyo iyo hoy loo siiyo barakacyaasha abaaraha. wejiga koowaad ee taageerayaasha Sacuudiga oo lagu qiimeeyay lacag dhan 7.18 milyan ayaa gacan ka geystay wax ka qabashada macluusha iyo saameynteeda. 10 qof ayaa ku dhintay dalka Masar kadib markii ay ciidamada booliska rasaas ku fureen dad doonayay inay ciidamada booliska ay u gacan geliyaan 4 qof oo loo haystay inay afduubeen ilmo yar halka hooyadiina ay dileen. dadweyne gaaraya 300 ilaa 400 oo qof careysanaya isugu soo baxay iridda hore ee saldhigga iyagoo dalbanaya in la sii daayo 4 qof ee loo xirtay tuhunka. hase ahaatee ciidamada booliska ayaa diiday iyagoo dadweynihii ku riday sunta dadka kaga ilmeysiisa si ay u kala yareeyaan. hase ahaatee arrintaasi xal may keenin, waxaana sii batay buuqii iyo rabshadihii, taasi oo horseeday in ciidamada booliska ay rasaas adeegsadaan. ciidamada waxay sameeyeen tallaabo kasta oo suuragal ah si looga fogaado inuu dhaco iska hor imaad ama rabshado. ciidamada ay sameeyeen xeyndaab ammaan ah oo ay tahay inaan dadweynuhu soo dhaafin, waxaana u sheegnay dadweynaha in arrinta wadahadal lagu dhameeyo si looga hortago inuu dhiig daato, ayuu yiri taliyaha ciidamada ammaanka dalka Masar. waxa uu sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa inay wateen baangado waaweyn, mindiyo iyo ulo. markii ay bilaabeen inay dhagxaan ku tuuraan ciidamada ammaanka ayaa ciidamaduna ku jawaabeen inay rasaas ridaan. allaha u naxariistay waxaa xalay xilli dambe qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka degmada Yaaqshiid Macalin Xuseen Filaweyne xilli uu ku sugnaa meel ka mid ah xaafadda Buulo Maxay ee degmada Kaaraan. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Yaaqshiid Cabdullaahi Shiilow oo xaqiijiyay dilka gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Yaaqshiid ayaa sheegay in qarax loogu xiray gaarigiisii uu ku qurxay. goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa tegay ciidamo ka tirsan kuwa laamaha amniga Soomaaliya kuwaasi oo halkaasi ka qaaday meydka gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka degmada Yaaqshiid, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in qaraxa ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ilaaladiisa. laamaha amniga gobolka Banaadir ayaana weli ka hadlin qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda maamulka degmada Yaaqshiid, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in qaar ka mid ah ilaaladiisa ay qaraxa ku dhaawacmeen. waa tahay daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo afmarayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen dunida media. mar kale waxaan daawada kaa codsanaya haddii aad janaalka ku cusub tahay inaad subscribe saarto gambaleelka aad furato si uu kuusoo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino. like garee muuqaalka una sii sheergaray saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba tan guud ahaan caalamka. halkan ayaad ka daawan doontaa wax walba oo ka cusub siyaasadda Soomaaliya iyo weliba tan guud ahaan caalamka. oo aad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. mahadsan.